Assalaamu calaykum. Adduunkan aan ku noolnahay waxaa jiro dowlado leh awood badan, sidoo kale waxaa jiro shakhsiyaad awood leh oo awooddaasna waxay ku kasbadeen ficilo awood leh oo ay isticmaalaan. Caalamkan weligeed way ka jirtay shakhsiyad awood leh, laakiin qarniyadan dambe xeerarka awoodda waxaa iska bedelay xeerar badan oo aan la rumaysan karin. Caalamkan naxariis darrada ah waxaa ku noolaan karo qof karti iyo awood u saaxiib ah. Si aad u yeelato awooddaas aan ka hadlayno, waa inaad isticmaashaa xeerarkeeda. Halkan aan kugula wadaagi doono. Soo dhawaada, magacaygu waa Yacquub Xasan. Xeerka koowaad: ha u muujin macalinkaaga waxa aad dheer tahay. Sida aan wada naqaano, marka aan wax baranayno nidaamka caadiga ah waxaa dadka wax bara macalin, ardaygana waxbaa la baraa. Marka waxaa muhiim ah in macalinkaaga inaadan dareensiinin inaad wax dheer tahay. Hana soo bandhigin awoodahaaga si uunan u dareemin macalinkaaga awood la'aan. Xeerka labaad: ha siinin kalsooni xad dhaaf ah saaxiibadaada, oo baro sidii aad cadowgaaga uga faa'iidaysan lahayd. Marka aan ka hadlayno xeerarka awoodda, saaxiibada inta badan ha ku kalsoonaan, sababtoo ah marka aan dib u fiirino, qofka boqorka ah waxay khiyaano uga timaadaa ragga u dhow. Sidoo kale baro sida loo isticmaalo cadowgaaga. Xeerka saddexaad: qari qorshayaashaada oo cidnaha la wadaagin tallaabadaada xigta. Dadka qaar waa sida buug furan oo kale oo waxaa akhrisan kara qof walba oo la sheekaysta, oo ma ahan dad ixtiraamaya naftooda. Mar walba aad dadka la wadaagtid qorshayaashaada, dadka kale waxaa adkaanaysa inaad ku dhaqaaqdid ficiladaas, sababtoo ah xitaa haddii ay kula muuqato mid la gaari karo, dadka way ku xumeynayaan oo waxay ka dhaadhicinayaan inay tahay hawl adag oo aanan la gaari karin. Xeerka afaraad: noqo qof aamusnaantiisu ay ka badan tahay hadalkiisa. Mar walba hadalkaaga uu badan yahay waa mar walba ay dadku ku dhibsanayaan. Qofna ma ogaan karo qofka aamusan waxa uu yahay iyo ujeedada ka dambeysa aamusnaantiisa. Mar walba ay badan tahay aamusnaanta qofka waa mar walba uu u muuqdo qof awood badan. Xeerka shanaad: ilaali sumcadaada. Sumcadaada waxay ka mid tahay tiirarka ugu muhiimsan ee noloshaada. Haddii aadan lahaateen sumcad iyo sharaf, dadka ma aadan dhexmarteen, oo waxaad ka xishoon lahayd inaad dadka dhex joogto. Xeerka lixaad: ka dhex muuqo dadka. Dadka badanaa waxay ixtiraamaan qofkii ay badanaa arkaan, oo waxay u maleeyaan inuu sameeyay waxyaabo ay adag tahay in la sameeyo. Xilligan aynu joogno, caanimadu waxay nala gaartay meel xun, heer aan gaarnay in la sameeyo wixii laga xishoon jiray. Xeerka toddobaad: dadka kale ha kuu qabtaan shaqada, adigana maamuuska qaado oo u muuqo inaad tahay qofkii shaqada qabtay. Badanaa dadka maamuuska leh waxay isticmaalaan in badanaa loo qabto shaqooyinkooda, ayagana ay lahaadaan keliya kormeer iyo saxiix. Taas waxay u oggolaanaysaa inay sii yeeshaan awood dheeraad ah. Xeerka sideedaad: cadowgaaga ku qasab inuu ka tanaasulo qorshayaashiisa. Marar badan uma baahnid in dagaalka adigu bilowdid si aad u guulaysatid. Waxaad awoodaa inaad cadowgaaga u dhigtid dabin si uu isaga dagaalka u bilaabo. Tusaale ahaan oo kale, haddii aad rabto inaad qofka adkaato, waxaad usoo bandhigaysaa 2 qorsho oo labadaba ay adigu dan kugu jirto. Sidaas daraaddeed, mar walba ka fikir in qorshayaashaadu ku shaqeeyaan, cadowgaagana u diid inuu qorshihiisa u shaqeeyo. Haddaba daawade, haddii aan su'aal ku weydiiyo, weligaa ma isticmaashay xeerarkan aan halkan kusoo jeedinay? Horeyna ma u maqashay xeerarkan?